بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada walaalayaal kusoo dhawaada cashir xisaaba oo ku saabsan fractionka waxaa idin soo jeedinaya aniga oo ah Cali Mahdi Jilacow waxaan ahay macallin dhiga xisaabta iyo physics-ka waxaan marka hore cashirkeena ku bilaabaa waa maxay fraction jajab muxuu yahay what is a fraction waa qayb ka mid ah shay dhammaystiran oo dhowr qaybood loo qaybiyey hal qayb ama laba qayb ama dhowr qayb oo ka mid ah ayaa waxaa la yidhahdaa fraction is a part of whole thing jajabku waa qayb ka mid ah shay dhammaystiran haddaanu fiirino sawirkan goobada ah waxaa noo muuqata in afar qayb loo qaybiyey hal qayb ay gaduud tahay hal qayb ay cagaar tahay laba qayboodna ay caddaan yihiin marka qaybta gaduudka ah sawirkii oo dhan ma aha laakiin waa hal qayb oo ka mid ah sawirka qaybta caddaanka ah waa laba qaybood oo ka mid ah sawirkii cagaarkuna waa isna hal qayb oo ka mid ah sawirkii haddaan kan fiirinana waxaa noo muuqata in afar qayb loo qaybshay saddex qayb ay midabeysan tahay hal qaybna ay caddaan tahay marka qaybaha midabeysan sawirkii oo dhan ma aha laakiin waa saddex qaybood oo ka mid ah sawirkii kan haddaan fiirinana isna wuxuu sheegayaa in lix qayb loo qaybiyey saddex ay jaallo tahay saddex ay gaduud tahay fiirino denominator and numerator hoose iyo koreey waxay kala yihiin hooseeyuhu muxuu noo sheegayaa koreeyuhu muxuu noo sheegayaa hooseeyuhu wuxuu noo sheegayaa inta qaybood ee shayga la qaybiyo aan u qaybinay the denominator tells how many parts the object was divided hooseeyuhu wuxuu noo sheegayaa inta qaybood ee aynu shayga la qaybiyo u qaybinay koreeyuhuna wuxuu noo sheegayaa qaybaha aan shayga u qaybinay inta qayb aan ka soo xulannay the numerator tells how many parts we chose koreeyuhu wuxuu noo sheegaa inta qaybood ee aanu soo dooranay tusaale haddaan todoba qayb aan u qaybinay todobadaas qaybood waxaa noo sheegi doonaa hooseeyaha haddaan saddex qayb soo xulanana saddexda qaybood waxay ka muuqan doontaa koreeya haddaanu sawirkii hore ku laabanay goobada ahaa waxaan dhahnay qaybta gaduudka ah waa afartii meelood hal meeloo ka mid a nambar ahaan waxaan qori karaynaa 1/4 afar qaybood oo ka mid a goobadii afartii qaybood goobada loo qaybiyo hal qayb ayaa gaduud ah cagaarkana waxaan qori karnaa 1/4 afartii qaybood hal qayb ayaa cagaar qaybaha caddaankana waxaan dhigi karnaa 2/4 white afartii qaybood ee goobada laba qayb ayaa caddaana haddaanu sawirkan kala fiirinana qaybaha midabeysan waxaan qori karaynaa 3/4 scalarid afar meelood saddex meel ayaa midabeysan haddaanu kan kala fiirinana waxaa noo muuqanaysa in afar qaybood ay jaallo tahay oonu qori karayno 4/6 yellow lixdii qaybood ee loo qaybiyo afar qaybood ayaa jaallo ah marka qaybaha aan dooranay ee jaallaha aan ka dhignay waa afar qaybood waxay ka muuqataa koreeya ayaa noo sheegaya gaduudkana 2/6 red lixdii meelood ee sawirka loo qaybiyey laba meelood ayaa gaduud ah marka inaan laba meel soo dooranay oo aan gaduud ka dhignay waxaa noo sheegaya koreeyaha guud ahaan inaan sawirka marka waxaan fiirinayaa bal qaar ka mid a fractionada caanka ah some famous fractions qaar ka mid jajabka caanka ah ee maalin kasta maqalno waxaa ka mid ah half ama nus laba meelood hal meel waxaa ka mid ah 1/3 1/3 saddex meelood hal meel waa thuluthkii waxaa ka mid ah 1/4 afar meelood hal meel quarter waa rubicii waxaa ka mid ah halfisku waa badan karaan dabcan sidoo kale rubacyaduna waa badan karaan haddaan halfis ka fiirino waxaa laga yaabaa inaad hal half haysato laakiin haddaad laba ku dhufato waxay ku noqonaysaa laba half haddaad saddex ku dhufato waxay ku noqonaysaa saddex half afar half shan half nambarkaa ku dhufato rubacyada isna wuu badan karayaa rubcu haddaad hal ku dhufato wuxuu ku noqonayaa laba ku dhufato wuxuu ku noqonayaa laba rubac saddex rubac afar rubac shan rubac hadba